بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. habeen wanaagsan caawa sidaad garanaysaan qoladiina meediyada ama warbaahinta reer Puntland oo reer Soomaaliya intaba ka jooga halka waxa weeye 12 saac markay dhacdo waxa ka buuxa waqtigii 4 sano oo la doortay madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya mudane حسن شيخ محمود بيكا بوحدة عاو 12 أرنتاس عن مغلي جري سومالي وتر هذا عيلنا وما قدنا عندنا وما مقنا وحي هذا بير الصباح أما عاو بإن لا دارية مدحوينا عصب بهيد مدحوينا حسن شيخ أفرسن وحفيز كجوجي وحلو دي بالدستور وحلو دي بالدولتكم يلقارك اللي ساري تاريخ اللي ساري وتقرنيسان 2012 baa laga saaray markii gorowtu lagu gudoomiyay halakan in nidaamka federaalka la qaato aqalka hoose sanadkaas lagu sameeyo 4.5 kii laga fujimay dadka qaarkii aqalka sarena oo noqdo 18 gobol oo ay ka kooban tahay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliya oo Maxamed Siyaad الله ونحرسته مركو حفيزك كتجي ودمكو ككوبنا دورشداس سي كود عضيبه اقلكي سريده او دستورك ku qoran yahay inuu wax ka doorto madaxweynaha ayaa xasan waxa doortay aqalkii hoose dastuurkiina waxba laga qalday madaxweynuhu ku noqday qaladkii doorashadiisa ku yimi baa wali Soomaaliya la socda 4 sano ka bacdi oo la doonay dastuurka dib loogu noqdo dowlad goboleedyadii Soomaaliya ka koobnaan lahayd la dhameystiro la dhiso waxay ku dhamaatay habaan mansuura meel cidla bay ku dhamaatay caawa oo ay tahay bisha September 10 ayay kaga buuxdaa 12 caawa madaxweyne xasan sheekh waynu xafiiska baneeya birisuwa xilka ku wareejiya ra'iisul baarlamaanka waynu ku wareejiya sida dastuurku qabo kumeel gaarka qodobkiisa 91 4 sano ka buuxdo qodobka 95 oo sheegayo in xilku ku wareegayo markuu xafiiska baneeyo ra'iisul baarlamaanka inuu ku wareejinayo ama ra'iisul baarlamaanka kale ku siixiga ama kan kale ku siixiga haduu ka cod daarto ra'iisul baarlamaanka speaker of the house oo isagu madasha kamid ahaa haduu ka cod daarto waa inay ku wareegtaa hoggaanka baarlamaanka waa inay ku wareegtaa sidaan ka warhayno sagaalkii bisha 8 madasha oo ka kooban saddexda xafiis oo dowladda federaalka oo dhaxay ra'iisul baarlamaanka madaxweynaha iyo prime ministerka oo executive-ka iyo maamuladii dowladda federaalka xubinta ka ah oo xamar isugu tagay waxay soo saareen warmurtiyeed doorashadu say u dhacayso qeexaysa iyo muddo kororsi loo sameeyay nimanka xilka haya xafiiska haya madaxweynaha iyo prime ministerka ilaa 30 October taasoo sharci darro ah aan sharci waafaqsanayn barnaamijka aan la geyn madashu waa maamuladii dalka koobnaa ama haadan ku dowladda dhexe ama magaciisii laakiin baarlamaanka legislative ah wixii sharci baarlamaan la geeyay waxay ka shaqeyn kareen farsamo ahaan si doorasho lagu dhigi karo see muxuu ahaay wax loo maareyn karaa see kharash loo bixin karaa xagee la isugu diray oo idman yihiinta laakiin sharci ma sameyn karaan dastuurkana meel ka wadci ka bedeli kara dastuurka ku meel gaarka oo dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu qeexayaa artikalayaas aan inii sheegay sidaas maalinta xil ka buuxo hadaan madaxweyne sharci imaan inuu xilku ku wareegayo guddoonka baarlamaanka inuu ku wareegayo baarlamaanka lama kala dirin waa jooga si sharciga waafaqsan bay waxay yiraahdeen annaga baarlamaanka la bedeli kara power vacuum ma ogolin annaga wali sharciya haddii aan baarlamaan la soo dooran inta annaga mandatekiya ka hadhay oo ahayd 20 bishan hadda la soo dhaafo August haduusan baarlamaanka kale imaan annaga jooga inta baarlamaanka la yiraahdo marka iyaga wali sharciya taas anagu aaminsanahay
haddaanu nahay shacabkii, haddaanu nahay mucaaradkii, haddaanu nahay kandideedyada u tartamaya madaxnimada iyo hoggaanka dalka Soomaaliya, aniga iyo ragga kale qaarna maanta xamar ka hadlaayay horena ishu soo saaray. madasha go'aankeeda maalinta waxaan ka soo qoray saa ka warhaysaan meediyadana galay qoraallo baan ka soo saaray magaalada Garoowe bishii 18keedii baan ka soo saaray laba madaxweyne u tartamayaal baan halka ku ahayn maalin ka bacdi 12 August wala Coalition for Change anaguna aan ka mid nahay. Coalition Change waa ambareelada guud baayana soo saaray qoraalkaas ay go'aankaas 9 August lagu kordhinayay xilka xafiis hayayaashii political opposition party nimanka la baxay iyaguna xamar jooga oo Coalition for Change ka mid iyaguna 13 bay qoraal soo saareen. ka bacdi 19 mid loo dhan yahay baan soo saaray oo aan u qoray qaramada midoobay golaheeda ammaanka iyo beesha caalamka guud ahaan waan ku wargelinayno sharci darrada ka jirta halka iyo in sharciga loo soo noqdo. intaasoo dhan macluumaadka ka bacdi maanta waxaa ka hadlay iyaguna xamar yimi qoladii axsaabta xamar joogtay iyo qoladii Nairobi joogtay isku soo darsameen waxay isugu yimaadeen xamar waxay soo saareen oo sheegeen in Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xilka caaw kaga buuxo subaxii waxaa loogu yeerayaa haddii waagu beriyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale madaxweynihii hore dowladda Puntland oo federaalka ka mid ah saas loogu yeeray isku title baan noqonaynaa nasiibkiisa. doorashadii dadbanayd oo ay ku dhawaaqeen bisha 9keedii wax talaabo ah oo wali hore loo qaaday ma jiro. 9 August imsa laga jooga bil iyo maalin baa laga jooga wax talaabo ah oo shaqo ah oo socota ma jirto. anagu ma arkayn doorasho dadban waxaan u arkaynay kororsimo dadban oo xafiiska lagu sii joogo waana muuqataa haddii xamar hadda waa la joogay maanta delegationkii Puntland madaxweynihii Puntland hogaaminayay marbay soo kici gaareen dabadeedna waxaa la yiri bal waa loo yeerayo dib baa loo ceshay wax hadda ka soo baxayna weli looma sheegin. waa arki doonaa dalka crisis buu ku jiraa constitutional crisis laakiin dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed walba 26 sano dowladana waa joogeen maamulana waa u dhisan yihiin inta ay dowlad lagu kalsoon yahay doorasho imaanayso doorasho kororsimo dadban aqbali mayno. xilka ninka ha banayo ha u dhiibo guddoonka baarlamaanka ha u dhiibo annaga tashanayna beesha caalamkana waxyaalaha qaarkood oo faraha gelisay oo hadda wax badan qaldameen ha joojiso oo ah 4.5 oo dastuurka lagu jebiyay iyo heshiisyadii ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay 18 February 2012 ha laga joojiso. waxayna tarayaan waa uga baahannahay laakiin siyaasiyiin ama diblomaasiyiin iyagu xafiisyada ka yimaadeen u danaynaya iyo iyaga xafiiskooda iyo kariirkooda oo annaga boog intay noo dhayaan hadhow meel cilaan nooga tegaya waxba danteena ma hayaan Soomaaliyada danteeda isu og waxba kala gaari mayaan way tashan kadha 4 sano oo khasaare ah 4 sano oo NGOism ka ah aan dawlad iyo institution hay'adaha midna xooga la saarin 4 sano oo biliqa ah oo hantidii ma guurtada ahayd oo dawladii Soomaaliyeed oo ay ka dhaxashay isticmaalkii ilaa dawladii iska dameeyay ilaa tii maxamed si ugu dameysay la xaraashay intii badnayd la xaraashay oo caawa wax sharci oo loo maray soo baarlamaankii joogo baarlamaankii oo laga talaabsaday oo functionkiisa oo dhan la tuuray iyagoo wax khilaaf ka jirin ka bacdi markii ay madaxweynaha ku eedeeyeen khiyaano qaran oo la dhaxgalay gacan ka hadal iyo faragelin iyo kala dulaal iyo malaal la dhaxgalay haddana wuxuu dhismi waayeen nidaam qabaliya aan horay uga afeefanay oo aan wax badan ka hadlay aanu inuu dad kala qaybiyo ma isu keenaya ma jirto nidaam qabaliya waa kii 13 leegada hadda ani xafiiskay ku dhagan ay ka tanasuleen oo Soomaali ka dhaadhiciyeen dowladnimada lagu gaaray dib u noqosho wax hadda laga bixi waay waxa leeyahay aqalka sare reer baa inta helaya kuwa kale inta helaya wareede adduunka waxa lagu dhaqmaa qaynuun
sharci islaamiya oo sunnaha iyo quraanka waxa ku yaala la raaco ama xeer dadku degsado oo aan khilaafsanayn iyaga anagu xeer baan qoranay xeer baan degsanay xeer dawladnimo hal lagu dhaqmo wuxuu sheegayaa qodobka 72 ee dastuurka federaalka ku meel gaarka xildhibaanada aqalka sare oo lagama maarmaanka waa 54 aqalkaas waxa la yiraahdaa the House of the Federation of Galad waa aqalkii baarlamaanka dawladaha kamid ah xubinta ka dawladda dhexe waa aqalka ilaalinaya ee xuquuqdooda ilaalinaya 54 18 gobol baan ku salayn waagi halkan lagu shiraayay oo hoggaanka la gaaray madaxweynihii ku meel gaarka ah oo dawladda federaalka Soomaaliya waqtigaas Shariif Sheekh Ahmed guriga hadda shirka jaraa'id ku qabtay buu deganaa gurigaana ra'iisul wasaaraha deganaa guriga halkaan oo kalena waxa deganaa ra'iisul baarlamaanka saasa loogu heshiiyay 18 gobol 18 isteedna waa noqon karaa hadii lagu heshiiyo 18 gobol marka la yiraahdo Muqdisho baa ku jidda laakiin hadii la yiraahdo 18 gobol 18 isteed hadii la yiraahdo 8 isteed ama 6 isteed inta isteedyadu yihiin Muqdisho markaa kuma jirto loo isteed maaha waa sababta aan dastuurka loogu qoray hal qeexo maqaamka caasimadda wadamada federaalka sida Australia kale Canberra America Washington Ottawa Canada anigu aan aqaano nidaam dhismoodkooda dawliga caasimadaha territory baa la yiraahdaa mayor baa xukuma nidaamka federaalka kama mid noqda laakiin dawladaha ugu yar oo federaalka kamid ah xildhibaanada aqalka sare isku in bay leeyihiin waa ku qoran tahay dastuurka madashu waxay ahayd labada mid ay qaadato oo ay dadka ugu faataxayso shaqadan la bilaabo reer baa inta dheer reer baa inta laga dhigo kan lagu daro inflation aan joogsanayn inflation lacageed baanu la ciirsanayn inflation qabiil oo baanu isaguna awal ka soo kabanayno ka soo soconay inflation madax iyagu qabiil isu diriraayo isu haysanayaan nama matlaan noomana maqna mana naga wakiilaha laakiin nasiib waxaan ku leenahay biriba Carafa ummadda Soomaaliyeed halkaan waa wada gaaraya kuwa Carafa taagan hay soo duceeyeen kuwa Soomaya biri oo Carafa ha duceysteen aawa hal duceysto in Ilaahay naga hor dhaqaajiyo kuwa hadda meesha jooga oo Xasan Sheekh naga hor dhaqaajiyo iyo kuwa raba inay xafiiska wali madaxtooye dib ugu soo noqdaan iyagoo isticmaalaya hanti dawladeed iyo awoodda dawladda iyo amnigii iyo ciidankii iyo wax walba iyo influence-gii mid walba isticmaalaya Ilaahay Soomaali u dhiibo cid ka naxaysa oo waxa ay u baahan yihiin fulin karta oo Ilaahay la kaashata oo nabadgelyo ku soo waarta oo dadka dib heshiisiin u samaysta oo kuwa xataa wax qaxinay wax dilaayo albaab u furta laga soo noqdo oo rajo gelisa in dadku dib uga noqon karaan oo aamini karaan hadii kale inta cid ciil qabto waligood kan ciil qabaayaga ku biiraya dhibaataduna waa sii soconaysaa ummadina waa dhamaatay maanta waxa arkayay qolooyinkii xamar joogay oo kamid ahaa coalition for change ururkayaga qaybta xamar isugu timi oo wadooyinka xamar kaligood lugaynaya iyagu waa liibaaneenoo hotel bay ku xiraayeen oo exercise bay heleen ba kaligood soconay maanta waa lugaynaya laakiin waxa la yiri gaadiidkii baa loo diiday wadooyinka maray gaadiidku dhawaa maray maalmin ciida lagu jira haweenkii caruurtooda wax soo gadan lahaa waalidkii odagii shaqo tagi lahaa dadkii isu laalaaban lahaa suuqyadii dadkii ganacsiga ahaa badeecada keenay qofkii jiraan istaa la geyn lahaa meel la maro mal waxa la magaalooyinka waa la xiro mise xiraan magaalada waxay tahay hadii magaalada loo xiray hadii maxaa shirka loogu qabanaya hadii basaas tahay ma joogta qiimaha ma ku kacaysa ma joogta in dadkii Soomaaliyeed lagu ciqaabo magaalada xamar sida loogu ciqaabo in shirciga lagu qabto ma meel kale lagu qabto dawlad goboleedyada mid lagu qabto oo mid kale lagu qabto waxaan u maleeyahay magaalahan waxa ugu yar cadaadaha lagu qabto amaanka waa la soo karaa wadooyina la xiri maayo ha lagu qabto dikal garow halkeen dikal kismaayo halkeen hadii kale baydhabo aeroboortka madaxweynuhu joogaa baa aeroboortka baydhabo lagu qabto hadii kale xalanaha lagu qabto dadka diyaarad bay ka soo degayaan dadka yaan la cadaabin marka cuqubadaas dadka loo geystay oo imaamihii Ilaahay barakeeyay kamid ah waxa moodeen in meel yar ku dhacayaan waxaas waa soo baxaya waana ku dhacayaan wixii digeysatay annaga Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu san soo gaarsiin intii waxa geysatay kaliya ku koobo marka waxaan caawa u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogeene tan waa galbatay midda soo socota ka fikira waxaana asaas u ah xildhibaanada aad soo dooranaysaan cid in masli ka dhahaato
oo masiirka Soomaaliya ka saari karna oo kuwii markii 60kii xorriyadda la qaadanayay baarlamaankii ku jiray oo kale hal isaga jiro ha ahaadeen dad maanta looga gamci karo masiirkiina uga gamci kadaan uga seexan kadaan oo inay matri kara oo inay dooran kada cid inay matri kada inay xuli kada doorta maanta jaanisaysan waa odayaasha hadii kale sida arki jiray oday walba inta lala hadlo hebel ii soo saar ama qabiil buntiris ah intuu galo mid aan waxaraha loo dirsan karin inuu soo xirayo hageeyeen meesha idinkaana in ku soo noqonaysa marka ciru dameed xumadu idinka iyo caruurtiina iyo mustaqbalkiina Soomaaliya waxay noqon doontaa ilaahay naguma keene mid loo haro waxaan maqli jiray Soomaaliya ku ducaysada ilaaha noo har ilaahu Soomaali nasr u soo ilaahu dhibaatada ka saar ilaahu fariqayba u fur ilaahu maalmihii barakaysnaa baan ku jiraaye naga aqbal ilaahu wixii aan mooyee aan faa'iido noo hayn naga horleex amiin ilaahu naga horleex isu sharaxaya waxay qabteen ma jiri 4 sano waana mahadsantii